waxa ku baxaya arrinka waxaa la taaban kara caynta ah oo gudaha qofka gelaya waxaa ku baxaya oo ka duwan oo haddii gudahaaga uu galo soonku uusan kaa buraynin al athar waxaa la yidhaahdo raadka waxaa la dhaho ka wusuuli طacmi masalan bidawq bariiska dhadhankiisii yaa dhadhamis kugu gaaray adigii gabadha markii masalan afurka ay samaynayso hilibka ma bisil yahay ma mixi baa ku batay unbay markaas afkii bay saa ugu qabata masalan ama carabkii aaradiisii xaggiisa hore saa ugu taabatay marka dhadhankii bay dareenta fiir hadde dhadhankaas yaa gudaheeda u gudbay waa dhadhankii hadde cayntii maaha maxaa la yidhaahdaa maraqii hilibkaas maraq dhacaankiisi ma aha waa dhadhankii yaa gudihii galay dhadhankaas waa dareen une isagaas waxba ka burin maayo allahu mustacaan candhuuftii waan sheegay nadiifka ahayd hadduu qofku laqlaqo waxba dhiba keeni maayo laakiin haddii ciridkiisa haddii dhiig ka yimaado oo candhuuftii dhiiggaas uu dheexo oo candhuuftaas najaasada ah dhiiggaasi ku jiro uu qofkii laqo soonku waa ka buraya amaba waxay yidhaahdaan haddii candhuuftaas uu carabka foodiis intuu ku soo qaado sidaa dibadda ugu soo saaro dabaysha ku dhacdo dabeedna uu saa u laqo wuu ka buraya isla soonkii dhib ma keenayo wixii markaa dufanka la ismarinaya jirka sayid macsaru jirkii iska mariyey markaasaa jirka cabay ama madaxii wuu isaga shubay tintii dhaladii buu gaarsiiyey madax dhaladiisu gaarsiiyey markaasaa daldaloolkii dhidid ka soo baxayey yaa wixii laqay kaa shida ma laha gabadhii indhakuul bay marsataa ama ninkiiba raggu badana ma marsadaane wuuse fiican yahay in la marsadee indhakuul sax ah in la marsada aad bay u fiican tahay ismidka oo kale hadduu sax yahay indhaha wuu nuuriya baa lahaa kaas yuu indhihii marsada markaasaa dhadhankii yaa dhuuntiisu ka dhadhamiyey dhuuntu ile sanki iyo afka iyo indhihii wixii way isku daloolaanoo dhammaantood dhuunta xaggeeda bay u daloolaan halkaa daloolkii yaa waxa gaaray dhadhankii ismadkii indhakuushii la marsaday baa gaaray kaas ka burin maayo maxaa yeelay halkaa meel daloosho lagu tirin maayo saas ka dhiganta ama waa dhadhan waa dareen baan leeyahay waaba dareenba wixii waa dhadhan qofka hadduu aada u qubaysto lafteeda iyada lafteedu soonkii ma burinayso haddii biyahaas qubayska dhaladii ay cabto ama jirkiisa korkiisa uu cabo boodhka oo kale boodhka markuu waddada marayo iyo karbalada waxaa la yidhaahdo bariiska la haadinayo cunada saa gabadhu u haadinayso haddii boodhkeeda sanka ka galo markaa laqlaqdo wixii jirkeeda uu galo kaana dhib ma laha iyo boodhka waddada oo kale haddii qori uu qaato qofkii uu dhegta iska geliyo ama sanka uu geliyo aftara ilan shay wax cayn ah baa meel daloosho ka galayo gudihii gaaray arrinkaas noocaas ah wuu ka burinayaa soomka waxyaabaha kale oo soomka buriya waxaa ka mid ah aljunuun qofkii qac wuu waashayba mar hadduu waasho soomku waa buraya maxaa yeele majnuun sidiisaba cibaado lagama rabin kana ansixi mayni waatay ahayd ama suuxdimadii wuu suuxay qofkii aroortii fajirkii ilaa ghuruubu shamsi buu suuxsanaa qofkii soomkaas uma jira qofka qof joogaba carrada ma ahaynba uu maqnaaye laakiin haddii maalinkaa gudihiisa uu mar soo miiraabo haddana uu ku noqdo hadduu doono soomkiisa ka buri maayo hadduu daqiiqada xataa soo miiraamo oo uu garto inuu sooman yahay waxa kaloo maxaa la yidhaahdaa soomka burinaya qofkii ku degdegaya bishii qoraxdii weli aan dhicin buu iska timiraysanaya uu biyo iska cabaya waan malayuu leeyahay ama malayada ku adkaatay hadday dib ugu caddaatay in xilligaas wax cunayey qoraxdu weli ay soo jeeday hadda maalinka waa lagu leeyahay qofka wuu ridaaba qofki walciyaadu billaahi waa ka buriya soomkii khadkii buu ka baxay gabadha xayd baa ku dhaca iyadoo sooman taa waa la iska ogiyey waa iska caadi ama way dhashay iyadana waa sidaa oo kale iyadoo sooman soomkaasu ma jiro maalinkaa waa laga rabaya waxyaabaha aan sheegay soomka burinaya shardi bay leeyihiin waxay shardigiisu yahay
oo kuwa soonka ugu burayaa waa qofku inuu xasuusan yahay uu garanayo in uu soomanaa ama adigoo markaas sooman oo hilmaansan soomkaagii baad biyo iska cabtay waabay igu dhacda aniga mid aan saaxiibaynoo masooma ahaa yaan wada soconnayo markaasuu intuu guri gala xaafad galay baan biyo isiyu iska yidhi waa la siiyey annaga siyaan iska idhi waa laysoo taaga waan iska cabbi hadhow baan waagaan aadka u yaraabay ahayd cilmina marka aan aad u akhrisan culimmadii baan weydiiyey war soonkan wuu ku jiraa waxbaa sii deen baa la yidhi waa hilmaansanaanta taas mukhtaaran isagoo doorta markaa oo aan lagu khasbin madaxa bastoolad lagaa saaray waa lagu dilaya ama toorrey baa dhafoorka lagaa saaray oo dhab ahaan haddaadan afurin waa lagu dilaya run ay tahay waa iska cabbaysaa biyihii marka adigu maadan dooran ileyni waa inaad caalim ku tahay bitaxriimi aan cilmi u leedahay in soomka haddii la sooman yahay biyo la iska cabo inuu soomka burinayo markaasaad cabtay laakiin qofka jaahilka ah oo caalimka aan ku ahayn jaahilka waxaa loo cudurdaarayaa labadii ninoo la sheegi jiray unbaa loo cudurdaarayaa ummaddeena magaalooyin ku kortay oo culimmada ag joogta wax weydiin karta culumtii baran karta laakiin ka seexanayso jaamacado gaalaya cilmi gaalaya un doondoonaya nimanka noocaas ah laga yeeli maya ayaga laakiin nin gaalo iminka xalitoola soo muslimay dabeedna horay maantaba ka soomay haddana aan garanaynin soomka macnihiisaba aan garanayno buskud iska cunayo sharaab iska cabayo maba garanay soomkii jaanis uu ku bartana kansha uu ku bartana maba haynba muusan haynin marka ninka noocaasa waa loo cudurdaaraya war jooji baa leeyahy buskudka soomka wuu buriya cunadu way burisa soomkii waxaa laga soomayso cunada mashahawata iyo badni iyo walfarji soo maaha jooji nacam wuu joojinaya marka ninka noocaasa soomkiisa uu badbaadaya waa laga aqbalaya ma garanaynin yaa laga aqbalaya macnuhu waa sidaa iyo kii baadiye fog ku barbaarayo xagga ku korayo ciduu wax ka bartana waayey intuu xataa soo raadiyey cid waayey uu ka barto ninka noocaas ah ma garanaynin hadduu soon ku ciyaaro iska cuno ama wax uu khalkhaldo waxyaabihii soonka burinayey uusa sameeyo sidaa soonkiisa ugu badbaadaya isagana والله سبحانه وتعالى أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان welcome holy month رمضان أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور والرب تواب شكور رمضان welcome holy month رمضان welcome